madaxweynaha maamulka gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ku-xigeenadiisa kumanaan qof oo kamid ah shacabka gobolada dhexe ayaa ka qayb galay xaflad lagu xirayay shir maalmahanba ka socday magaalada Dhuusamareeb kaasoo looga tashanayay aayaha Soomaaliya iyo qabsoomitaanka doorashada 2016 kulankani ayaa odayaasha waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada uga arrinsanayeen hiigsiga aayaha Soomaaliya iyo nooca ay noqonayso doorashada sanadka 2016 laga rabo inay ka qabsoonto geyiga ay Soomaalidu degto ugu horeynba waa kuwan odayaasha gobolada dhexe qaarkood oo cambaareynaya hadal ka soo yeeray qaar kamid ah wasiirada xukuumadda Soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale hadalkii ka soo yeeray madaxda sarsare ee maamulka Galmudug oo lagu cambaariyay socdaalkii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo wafdigii la socdaba ay ku yimaadeen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxaan leeyahay qoladaas gobolada dhexe wakiil kama ahan ummadana dibkii ay u geysteen ayaguna waa yaqaaneen ummaduna way garanaysaa gobolada dhexe ayaga tashaday hore ayaga u tashaday hadeerna ayaga tashanaya fikirkii ummadana waan ku hadlayaa gobolada dhexe waan kaga soo horjeedo dadka hadlay oo xalayto dadkan taladiisa iyo go'aankiisa ay talintiisa ayagoo aan isku dagaan ayaan ahayn isku meel deganay ayaan matali karinin ayagana ka hadlay oo aayahooda ka taliyaan ku cambaaraynahay Ali Baashi Faarax Cali oo kamid ah madaxweyne ku-xigeenada maamulka Central State ayaa madasha ka aqriyay war-saxaafadeedkii ka soo baxay shirkii qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiinta sarsare ee maamulka gobolada dhexe uga socday magaalada Dhuusamareeb waxa ay isku waafaqeen waxgaradka gobolada dhexe oo ka koobnaa 357 ergey oo ergey ah in ay dhici karto doorasho qof iyo codkiis ah maadaama nabad ka jirto Puntland Central State oo aan joogno hadda Jubbaland iyo Koonfur Galbeed qaybo badan oo ka mid ah wadankeena Soomaaliya number 2 in la dhameystiro dastuurka dalka loona qaado cod bixin shacab referendum waay 3 in la sameeyo guddi doorasho qaran oo madax bannaan oo aan qolo iska samaysan 4 in si wada jir ah sinaan iyo cadaalad ah ay maamulada dalka ka jira uga qayb qaataan shirarka wada tashiga aayaha Soomaaliya ee 2016 ugu dambeyntii Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan aragtida shacabka gobolada dhexe aadna waxaan idinkugu ammaanaynaa dadaalka dheeraadka oo aad samayseen oo aad u aragteen aayihii Soomaaliya inuu ayada dhexdeeda yaallo ee shakhsi iyo laba shakhsi wax la mid ah aysan la boodi karin arrinta aad baan idinkugu ammaanayaa Isxaaq Xirsi Maalin telefishinka caalamiga ah SBC magaalada Dhuusamareeb.